waxaa bilowday laami dhigista wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo xilli sii horeysay ay bilaabatay dib u dhiskeeda kadib in muddo ah oo ay hakad ku jirtay. Wadadan ayaa muhiim u ah socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo Afgooye iyadoo kumanaan dad ah ay isticmaalaan wadadaasi maalin waliba. Waana marin muhiim u ah soo gudbinta dalagyada ka baxa gobolka Shabeellaha Hoose ee maalin waliba la soo gaarsiiyo magaalada Muqdisho oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo Soomaali ah. In muddo ah ayaa hakad ay ku jirtay ka gadaal markii injineero Turki ah oo ka shaqeynayay dib u dhiska wadadaasi lagu beegsaday Ex-Control Afgooye kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ku qarxay halkaasi oo sidoo kale ay ku sugnaayeen dad shacab ah. Ciidamo ka socda dalka Turkiga ayaa ka qayb qaadanaya sugista amniga dhismaha wadada si looga taxadaro wax kasta oo wax u dhimi kara habsami u socodka shaqada dib u dhiska wadadaasi. Shaqaalaha Soomaalida ee ku hawlan dib u dhiska wadadaasi ayaa qaba cabsi xooggan iyagoo dantu ay biday in ay wajiyadooda soo xirtaan si aysan u noqonin bartilmaameed. Haddii mashruucan dib u dhiska wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye uu u hirgalo sidii loogu talagalay waxa ay noqonaysaa mid ka mid ah guulaha shacbiga Soomaaliyeed ay ka dhadhansanayaan dib u curashada dowladnimada dalka iyo kaalinta lama ilaabaanka ah ee dowladda Turkiga ay kaga jirto dib u dhiska dalka. Soomaaliya ayaa ka soo kabsanaysa burbur lixaad leh oo ka dhashay qaranjabkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.